السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أو وناكسن وحأنو لا كلناي أنو كلا كلناي ترونهم مقال لقو مقعبه ونوري كتالله كان ميدا مقالوينكا سيدا قونيدا لوغو حسوستين ودقنا قدوميها بارلمانكا دولدا فيدرالكا سوماليا مدن محمد شيخ عثمان جواري waxaanu nimi halkan telefishinka qaranka markii ugu horeysay la doortay mudane jawaari annagoo dadka shacabka ee dalkan degan kulanay soo noqoshadiisan uu ku yimi magaalada booqasho hore uu ballan qaaday isagoo xilli horena yimi magaalada Oslo aanu kula kulanay ayaanu rabnay inaanu marka ugu horeysay wax ka weydiino mudane jawaari marka hore aan kugu soo dhaweeyay magaalada 20 sano in ka badan aad deganayd marka labaad waxaan rabay inaan ku weydiiyo booqashadan aad halkan ku timi kulli dadkaagii baa degan Soomaalidaadii baa degan dadku jecel baa jooga laakiin waxaan ognahay in hawlo shaqo kalena aad magaalada aad u joogtay bal arrimahaas haday aad marka hore warbixin naga siiso aad baad u mahadsantahay waana su'aal fiican waa hadii aan ku hormaro arrimaha aan u imid Trondheim waxa dhowr arrimood oo nasiib wanaag kulmay baa jira waxaad xasuusan tahay bishii May oo sanadka kani dawladdan Norway waxaa 200 jirsaday dastuurkii ay qorteen 1814 dabaaldegaas oo la sameeyay marka boqorkii ugu horeeyay oo mideeyay dalkan Norwayna oo qarumo ka hor Olaf la yiraahdona xuskiisi wuxuu ahaa bisha tan July bisha tan hadda aan ku jirno Luulyo hadda dhamaatay marka waxaa la igu martay qaaday in maadaama dastuurkaasi 200 sano uu jirsaday iyo magaciisa xuskii boqorkii ugu horeeyayna oo mideyntii oo sameeyay ay meesha ay bishan u noqday waxa ay tiimka ku soo dareen oo in laga hadlay noqotay dimuqraadiyada hirgashay nacfiga ay leedahay sida Norway ay ugu hirgashay iyo dimuqraadiyad hadeertan soo unkamaysa oo ka dhalanay Soomaaliya labadaas in la isbarbar dhigo sadaradeed waxa ay door biday dawladda Norway aniga inay igu cazunto aan martaan iguna garab cazunto ra'iisul wasaarihii hore oo 32 sano ku soo jiray siyaasadda oo dhowr yani muddo badan prime minister u ahaa liiraado Bundevik inaan wada hadal jeedino ani asaga taasoo ku beegneed maalintii Arbacada oo aan soo dhaafnay bisha 30 ka ahayd ayaanu meel fagaara ah in fact maalintaas dood waxaa laga dhigay mid aad u ballaaran oo furan waxaana lagu sameeyay meel barxad ah oo bannaan oo furan dadka shacbiga ay iman karaan si maaragtaa arrimahaas ay u dhageystaan isla mar ahaantaana waxaanu kaloonu imid inaan u mahad celiyo yani xukuumaddii shacbiga Norwayba gacanta ay siinayaan iyo deeqaha ay bixinayaan oo ay Soomaaliya ku kaalmeynayaan arrinta iyadan inaan uga mahad celiyo waxay arrin meesha ku jirtay isla mar ahaantaa waxaan fursad u yeeshay in aan la kulmo muslimiinta oo dalkan degan oo masaajid halka ku yaala masaajidka oo madaxda ah halkan oo dhowr 35 qaaradood dadka kala yimid 35 waxaan leeyahay qowmiyadood ka kala yimid ay ku tukadaan ayagana aan ciida la iidno oo aan magata aan kala qayb galno meel aan hore uga shaqeyn jiray ahaydo oo activism aan ka sameynay tabarro aan ku sameynay aygan waxa ay noqotay fursad fiican maantana de nasiib wanaag waxaan u yeeshay in marta shacbigii dhalinyaradii meesha joogtay iyo shacbigii aan la kulmay idana waa nasiib kale ii noqotay alxamdulillah waa socdaalan aad iyo aad ugu faraxsanay magaaladan Trondheim muddo 20 sano ka badan baad deganayd kulan hore waxa jiray dalkan magaaladan Trondheim ahaymi dadka halkan degan oo arday ah aan la kulmay macallimiin adigu macallin ah wahayd qodob baan rabay inaan ka soo qaato ah waxa jirtay gabar Soomaaliyeed oo marka macallin aad u tahay dardaaran soo jeedinayso lahayd macallin waxaad naga ballan qaaday mar aad nala hadashay in aad dalkii noo dhisaysid anagana waxaad nagula dardaarantay inaan wax baranno khayrna waa ku rajaynaa Ilaahay khayr ha ku siiyo macallin Jawaari waa macallinkeyga ardaydiisa fadhido dhamaan waxa u maleynayaa maanta inay ka soo qayb galeen laakiin ani kulay hadal badan haan ma buuxshalay waqtiga maalintii adeer Jawaari la doortay 26 August farxadii ilaa hadeerta way haysaa waxa ku leeyahay macallin hadalkii ku soo gabagabeynaya ina weligeen ku sugi jirnay weligeena ku sugi doono waxa xasuustaa kelmadda hadda ka hor jirtay marka ku dhaana macallin maxay nooga tagaysaa aad tiri wadanka idin soo dhisay idinkana wax soo barta arrintaas si kooban bal maxaad gabadha yar aad u qabateen muddo 2 sanadood kadib gabadha iyada aad baan ugu farxay oo aan dhalinyarada markii saas oo kale oo ay hadalkaas oo hadlaan aad buu noo taabtaa waa genuine weyn waxyaabo ay codsanayso waxay rabtaa meel ay iyada ka mid tahay leedahay
ay rabtaa inay hesho gabadhaas waxaa la mid ah dhalinyaro badan oo saas oo kale wiil iyo gabdhaba leh waa ku jirnaa dadaalka isaga ayaga ballantooda way fuliyeen hadda waxaan arkayay dhalinyaro badan oo macallin u ahaa hadda mid dhakhtar noqday mid kale oo injineernimo raadsanaya mid kale oo yacni waa badnaan gabdho badan oo hadda oo aan meesha uga tagay dhameeyey yani daraasadihii jaamacadda si fiican uga baxay way dhiirigelinaysaa in maaragtaa shaqada aan ka qabanayno dalka inaan laba laabno si dhalinyaradaas ay nogala wareegaan dalka waa ku tala jirnaa ma ka bixin ballantaa ayada aanu ka qaadnay ayaga dhankooda waa fuliyeen qaar kalena waa fulintii bay ku jiraan waxbarashadii ay iga ballan qaadeen way wadaan anigana dhankayga iyo jaalayaashayda baarlamaanka igula jira iyo xukuumadda iyo madaxweynahaba ka gaabin mayno in aan dalkaasi aan u nabadayno haddii aan la yidhaahdo at least dimuqraadiyad lagu noolaan karo oo adduunyadoodan ay ku dhaqan karaan aakhiradoodan ugu diyaargaroobaan in dalkaasi u noqdo waa himilada aan leenahay haddaad ka reebto siyaasadda waxaa weyaan arrinta aan rabno muwaatinka soomaaliyeed in dalkiisa uu asaga leeyahay ku noqon karo wax allo wixii asaga rabo ama ayada ay rabto inay noqoto intaas weyaan tan kale waxay jirtaa hadba sida maaragtaa ay u sameeyaan waa gabadha hadalkeeda waa xasuustaa aad buu ii taabtay camran hadda maanta waa joogtay su-aalaad kala jeedinaysa oo kulkulana u jeeday waa gabar fiican laakiin waxay ka tarjumayso ayaa ka weyn waxay ka tarjumayso waa dhalinyarada iyo gabdhaha iyo wiilasha soomaaliyeed ha joogaan dibadda ha joogaan gudaha ugu dambeyntii iyadoo xafladdii aad la qaadatay dad soomaali aad u fara badan oo su-aalo saas sheegtay laisku weydiiyey safarkaagan haddii aad nooga waranto xilli baarlamaanku fasax yahay halkan markaad ka tagto socodkaaga xagee buu noqonaya mudane socodkayga waa toos xamar haddii la yidhahdo meel kalen ku hakanayo ma jirto aan ka ahayn transityaalka aeroboortka waayo baarlamaanka wuu xiranyahay marka lagu leeyahay waxaa weyaan shaqadii oo golihii maxaa lahay fadhiga guud unbaa la hakiyey mooyaane shaqada baarlamaanka ugu xoog badan waxaa la qabtaa marka ay xildhibaanada ku maqan yihiin fasax waayo diyaarintii kalfadhiga shanaad baa jira warbixinadii la diyaarin lahaa qorshihii oo marta kalfadhiga shanaad wuxuu ku shaqayn lahaa oo dhan iyo waxaa jirta kalfadhigan markuu sanadka dhammaadkiisa yahay isla mar ahaantii waxaa la rabaa intuusan kalfadhigan dhammaanin in la dhigo qorshihii sanadka xiga marka shaqooyinka ugu culus wuxuu qabsama laakiin toos waxaanu aadaynaa muqdisho insha allah daawadayaal iminkana waxa aan jeclahay inaan qayb idinka tuso kulankii dhex maray jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Tottenham oo ah halka uu deganaa gudoomiye maxamed sheekh cusmaan jawaari muddo 20 sanadood ku dhaafaysa dadkuna ay aad u yaqaaneen kulankiisana uu ku weheliyey ku-xigeenka baarlamaanka mudane mahad cabdalla cawad daawasho wacan hor ilaahay baa mahad leh naga dhigay dad islaam ah naguna nooleeyey dhulkiisa ballaaran qayb ka mida mahad celinka bacli gudoomiyaha golaha shacabka soomaaliyeed mudane maxamed cismaan jawaari gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka soomaaliyeed mahad cabdalla cawad xubnaha la socda ee shaqaalaha baarlamaanka ah bulshaweynta soomaaliyeed ee degan Sotherland iyo ka soo qaybgalayaasha xafladan sharafta badan oo maanta aan kusoo dhaweynayno gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliyeed saxaafadda nooga timid dhul dheer una soo haajirtay wadda ka fog iyo waqti dheerna siiyey inay nagala soo qaybgalaan xafladan dhammaantiin mudanayaal iyo marwooyin walaalayaal anoo ku hadlahaya magaca ururka Sotherland waxaan naga guddoontaan salaanta islaamka isku salaamo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan ka bacdi maanta waxaa sharaf weyn noo ah inaan ka soo qayb qaadano amase aan nimaadno meel lagu soo dhaweynayo madaxdayadii hogaamiyaashii qarankeenna wafdi ballaaran oo noo yimid uu hogaaminayo guddoomiyaheena sharafta badan mudane maxamed cismaan jawaari mudane gudoomiye ku-xigeen
sharafta qiimaha badan ee la socda ummadda Soomaaliyeed oo degan soo Toronto laag dhammaantiin waxay idin leeyihiin soo dhawaada ku soo dhawaada gurigiinii iskoolaadkii aad macalinka ka ahayd meeshii dadka ka soo arorisay tegitaankii iyo farxaddii badnayd meesha uga tagatay soo dhawow baan ku leenahay mar koowaad iyo mar saddexaad ummadda ilaahay abuuray qofba waxbuu samaystaa laba qaybood baana dadku kala dhaqaaqaa mid wuxuu sameeyaa wax xun oo lagu soo xasuusto midna wuxuu sameeyaa wax fiican oo lagu soo xasuusto midka waxa xun sameeya oo lagu soo xasuusto waxaa la yidhahdaa hebel ilaahay naga kaa qaadi ilaahay kuma soo celiyo jannada alla kuma geeyo intaasuna cadaab ku taga qofka waxa fiican samaystahayna waxaa la yidhahdaa hebel ilaahay ha u naxariisto ilaahay jannada ha geeyo intuu nool yahana waa la xasuustaa waxaanu kugu xasuusanaynaa intayna deganayd horay u deganayd iyo intayna soo degtayba al abuurkii iyo mirihii aad noo samaysay oo aan ku nacfinayn qof kastoo Soomaaliya oo soo Toronto laag degan wuxuu ku dhaqdhaqaaqaa hal abuurkii aad noo dhigtay oo aas noo noqday oo aan ku kornay مثل أهان أنا جان إن هرتاج حتى أنك صوت عالي وحان كو إن دقالي أو كسر دقالي ما كان ترون هام محمد عثمان جواري هل أبوه كيسي دقاقي سيمان دقاقي ما كان رئيسي ما كان سعيد الله يا حبيبي أحسن سلام يا مدحت شرفت وسادية الدنيا محمد عثمان جواري يقدم كحيانك أنا وقع هذا مرة أورك هويت سومالية هي دمان بأورك سومالية ترونها كي وروحنا من هالعلنا مثل شرفت الصوت وقتي علي النقطة أنا وحن كم إذا هاي أنا هادوك هراء رترونها بس الجواري وقت بدنا بنترين كوذا الهولين ما أنت نوقف أحسن على والتاجر يبي ماله إن بدنا ماشي عن فريدة وحنا مليانة يا وحير بقى جوجو وقت الجوار عن ترون مثل جوجو ما أنت فرحت بعيد هاي وأنا سوي دوين إن سوي مرتضى شرف تلا وأنا مهزمتي. الدنيا بعرضان في الصومالية بروفيسور محمد شيخ عثمان جواري الدنيا كحجين كلابات ماهد عبد الله عود سود وهذا قاع مفروق سود وهذا اللي والسلام عليكم ورحمة الله. Soomaalida idinka waa idin salaami rag iyo dumarka afruurta saxaafadda culamaa diinka waa idin salaami idinkana hadal horaa loo yidhi wax yar oo kooban warbixin yar oo kooban aan rabaa inaan naga siiyo gudoomiyaha baarlamaanka oo kusoo noqday magaaladiisa magaalada uu deganaan jira kusoo noqday jaallo gudoomiye iyo jaallo gudoomiye ku-xigeen ugu horreyntii aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaad magaalada nagu soo booqateen waxaan fadhinaa qolkaan aan fadhino waa qolkii jaallo gudoomiye maxamed sheekh cusmaan jawaari professor maxamed sheekh cusmaan jawaari waa qolkii aad taleefonka noogu soo dirtay sanad iyo bar ka hor aad iyo aad ugu faraxsanaa caawa adiga life inaan ku salaamno oo aan ku aragno oo aan ku soo dhaweyno oo aan ku helino kuna garab istaagno magaalada waddanka Norway waxaa ku nool guud ahaan 5,175,000 oo qof waxaa ajnabi ah 15% taas waa tirakoobka guud waxaa kaloo ku nool oo aad gudoomiye baarlamaan u tahay 31,000 oo Soomaali ah asalkooda Soomaali kasoo jeeda dadkaas waxay u kala baxaan 28,000 oo ka mid ah may qaaliga ah 23,000 oo ka mid ah oo dadka Soomaalida magaalada degan waa dad ayagu yimid oo isdhiibay dadka waddankan jooga labay ku kala baxaan nin xabadi keente ah oo nabadgelyo soo doontay iyo nin uu jacayl keenay 23,000 dadka badankooda waa dadka yimid oo isdhiibay oo qaxootinimada codsaday oo soo galay waddanka 8,000 oo kale ka mid ah waa dadka qoysaskooda loo keenay ama nin ha la keeno ama haween ha loo keeno ama carruur ha loo keeno 31 ayaa waddanka jooga oo raba in ay ku dhageystaan waxaan rabnaa
إن أتعاوى نلا هذا الشيء نوانست نور جلست وحنوغا شيختك وضن كيني معانا. بسم الله. السلام عليكم. مدن يلي مرويين وحوات شرفي كسر دوية هالكانت مدن محمد عثمان جواري iyo gudoomiye ku-xigeenkiisa nooga yimid dalkii hooyo sharafta kasoo qayb gashay xafladan aad iyo aad ku mahadsantiin aad baan idin salaamayaa kolley dadka iga weynaya hadalkii dhamaystiray aniga waxaa ku hadlayaa magaca ardaydiisii soomaaliyeed ee ubaxii uu dalka uga tegay magaaladan waxaa ku leeyahay kusoo dhawow magaaladaadi jawaari macallin uma baahna in la soo dhaweeyo because qofkii ugu horreeyey ee magaaladan lagu soo dhaweeyey badanaa dadkiina inta fadhiya maanta waxaa farxad kale ii ah inay maanta joogaan dhammaan ardaydii uu macalinka u ahay waxaan kaloo aad iyo aad usoo dhaweynayaa gudoomiye ku-xigeenkiisa mahad cabdalla cawad isagana aad usoo dhaweynayaa kolley jawaari kama sheekeynayo waayo waan wada naqaanaa wuxuu yahay wuxuu dalka u qabtay inta badanaa waxaa dhamaystiray gudoomiye ku-xigeenkeeni nin dalkiisana u shaqeeyana kolley uma baahna in laga fasiro waxyaabo badan waxaa ku leeyahay macallin mar labaad iyo mar saddexaadba kusoo dhawaaw magaalada waa magaaladaadii aad iyo aad kusoo dhawaada bashartan aad iyo aad mahadsantiin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكيف يوجد ما يقرأ وهاي شيء أنا قلت والله يا مقع جاليات صوماليات سورترن هناك وضياشة سورترن هناك أنا قلت والله يا مقع وضياشة كان كسر دوينة يا قدوميها بارلمان كصوماليا محمد شيخ حسين جواري وفدي وقامنا وممكن اللي يرادو مهد عبد الله عود قدوميها برلمان كصوماليا محمد شيخ حسين جواري وفدي سوى سلامتين سلام كذب مدن قدومي سود أو مركورة adiga iyo wafdigaada tarona ku soo dhawaada la idinkaga sheekeyn maayo waa magaaladaadii macalinka aad u ahayd waa magaaladii aad odaga u ahayd waa magaaladaadii aad dadkaan oo idin inta badan aad ku soo dhaweysay soo dhawow ayaan leeyahay ku soo dhawow. الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مركو أبو هريسة soo dhaweynta la soo dhaweeyey gudoomiyaha iyo wafdigiisa ayaan dhinac ka ahay ama qayb ka ahay dadkii soo dhaweeyeen oo kale soo dhaweynaya. marka labaad run ahaantii qodobo aan soo diyaarsaday ayaa jiray oo inaan ka hadlay ahayd laakiin ka hadli maayo waxaan ugaga hadlaynin midna waxaa dhameeyey wiilka qur-aanka akhriyey waxaa sii dhamaystiray gudoomiye ku-xigeenka marka hala hadlo looma hadle هذا الوحتر أي وحكورة إن بوشة الروشة يكون في عنه. أنا هل قدرن كدرية أو بوشة فتميلو كنا وران أو سوماليات أن أجدين أيه. ما أنت سومالي وحكة سعوداتنا. سومالي تاريخ إلى هاي تاريخ أو قميص نعاب أو قميص الديب إلى أو تحنا. وحمانت إنها يستلم معهم قبيل كلي أيام لنا مويانا قبيل وكوين وأنا كحوين وأنا كبارين هو كوين أيامها يستا ما كان سيدا أبو دريني سايس أبو دريني سان إن تاسم معناه الوحوي هاي مصومالي ذي أيام لهي أو شلي كدي ديس أو شلي رايح كجسر لليسي جواني مريض رايح تور ورسوماليا توس اسكو تيرسدا hadba kiina taagdaran taageer abidkiina kuwii ku abtirsanaya Soomaaliya ahayd abtirsiga hadda gadaal ugu furnay gidi oo noqday ama gadaal markaad u akhriso Soomaaliya hadtoosin oo isku tiirsanin kiina taagdaran baabiya abidkiina taagan
ورمضان أنا madaxdayni ayaa la dilay oo u soo taagan inay qaranka wax u qabtaan ayagoo xamuul oo aad u weyn aad u ballaaran dusha laga saaray oo ah qabiil aan idinku dhisaynaa qarannimana ku gaarsiiya war ma isqabataa runta lasu sheegay ma isqabataa qabiilaan idinku dhisaynaa qabiilna ahaada qaranna dhisa qabiilii qaran waa isdiiday Soomaaliya عادي أوتاي دقني أوتاي ولي جدي هنجتي قبيل دي عناصر أيا ولا قبيل وفرق ترس دم تودي الأولى ودم تودي الأولى يا إيش يكره منك إبي كره حكومة هذا عروف ليه يتأسف وياه ساكي قبيل كيا إم بقو يقطع تعالوش إن الحالي راشد ميين كره أيوه إيه بنا يا إبي كره عرف ما جد نون يزيد ما ندعي دون لكن وهذا عيسى إن تلفون وصدره قبيلك يا لرا إن وحلو قبته لعك صدر قبيلك يا أنت كدعي قبيلك يا أنت كبحي حبض على الرأي لقضي يغري على الرأي لقضي ولا ليالو سوماليا ويكسو داشي دقال سوماليا وصود بنتين سوماليا وصوق حتى سوماليا ويصود تهريب كي يكون ماتي سدح بين كور بقول يكنتم يا بدس لغاية هبين سدحات بدل الترياني اللي بيقول هايز وهاوصيدر لمشاهد كهر تبكي يشدر أي صو مران أي أصو مران يمادان من البرواغ إنك صور أي صو كله هم معان أي أصو كعين أو قبيل كل شيء هم هدو شيء عند الرجال كسو تجي سوا صو مالو قبيل بكر استلمان قبيل كده الماء لكن إلهي قبيلكم كشيء وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إلهي أنت سوكيري أنا قبيل إن ما شاء الله يكون في عين سلامية ولحظة شرفت له ما أنت تراها من رجوعك أبيه يعني مدحضة يعني شيخ يعني بروفيسور يعني ولويبي أصحاب كيسة صاحب كيسة عود والسلام الله وحرمنا لنا إنتران أشكر لنا أنت قدر كتير ما أنت كلام معلم وها نوصل معلم وهاي أنت هذا قلت كبعد سنة وقال كذا لكن أنت بدر الغيرات اللي جوي في التاعت ماشي هحط على الفضيان بس الجواري وهحط على الفضيان وعلى وصوب قالوا معلمين تعرفوا هذا أنا صوب بدر وصاصة معايا حوالي أنا ومعلم كان كذا وحكم أنا الجواري وكتجي أنا كني معها جواري وحكتجي مسلم كودا مسلم كدجن تراهن أسقوا حرب والله يركض كذا يعني أفر يتره أنا كنت كمان بركينا أنا ركحت بحد أصلا استاجر إلهي أبر كيس الرجال يقول نصية أترشح على كمان اللي كنت كان هوستيس جمعنا وين لكن مثلا كان نصب القوة سبح دقائق وعرفت كلنا يعني مسلم كذا ودجن وتروي الله تنيش هيا مثل كعب مساعد كذا يقول صف أب ووضع هاي تصور مساعد كعب فريد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جاليدا مرتضى ونحي reer Trondheim iyo guud ahaan reer Norway rag iyo dumar meesha dhalinyaro iyo haween baa isugu yimid odayaashu waa ku yar yihiin runtii aad iyo aad bay farxad ballaaran oo weyn noogu tahay oo xusuus mudan runtii sida diiran maaragtay shucuurta leh lagu soo dhaweeyey guud ahaan يعني مسؤولين ahaan gaar ahaan gudoomiyaha iyaga oo runtii aad iyo aad golaha shacabka iyo shacabka Soomaaliyeed baqaale ugu ah sida uu idinku weyn yahay aad u xiisaynaysaan runtii shucuur iyo farxad weyn bay la gelisay soo dhaweyntaasna aad iyo aad baan ayaan mahad ballaaran uga celinayaa runtii
kelmado furitaan ah oo aan guddoomiyaha waxa weeye ku soo dhaweynayo ayaan doonayaa inaan idiin sheego intiina halkan fadhida sanadihii lasoo dhaafay yaa Soomaaliya tegay bal gacan igu tusa aad bay u yihiin waxaan u malaynayaa inaad weli xaalkii hore ee uu dalku ku sugnaa iyo dagaaladii aad ka soo cararteen iyo wixii inay weli idinku jiraan oo aysan idinka dhaqmin baan filayaa laakiinse dhab ahaantii Soomaaliya isbeddelka ka dhacay gaar ahaan meeshii ay aad ugu bugtay waxa weeye caasimadda ay dalka intiisa kale waa waxa weeye aad uma darnayn laakiin meesha dhibta ugu badan ka taagnay haddii wadnuhu uu qofku leeyahay ma noolaan karo caasimadda jamhuuriyadda ee ay dowladdii qaranku ka dhisnayd ayaa dhibta ugu weyn ka taagnayd iyadiina waxa weeye muqdisho waxay dib ugu soo noqotay yacni aragtideedii iyo muuqaalkeedii iyo quruxdeedii iyo isdhexgalkii bulshada shacabkii Soomaaliyeed oo dhan ay ku soo wada noqdeen waa lagu soo qulqulaa usbuucii in ka badan 30,000 oo qof ayaa dibadda ka timaaday waagii hore marka Nairobi iyo Dubai iyo laga soo socdo diyaaraddu markay baxayso muqdisho ka baxaysana waxa weeye waa buuxi jirtay markay soo noqonaysana cid lay ahayd hadda waxa weeye markaad Nairobi joogto ee aad doonayso inaad muqdisho tagto tigid ma goosanaysid taxi waad qaadanaysaa airportka Jomo Kenyatta tegaysaa diyaarad taagan oo markaas dhaqaaqaysa raacaysaa waxa weeye yacni waa maalintii ilaa 6 flight ayaa Nairobi kaliya ka timaada gobollada dalka waagii hore dadka odayaasha waa xasuustay basas iyo sitay monoqtay aan raaci hadda waxa weeye xarun walba oo gobol oo jamhuuriyadda ku taala diyaarad baa u baxda daily maalin walba u baxda marka baabuurtii iyo basaskii la raaci jiray waxba ma looga baahnaba waa $50 weeye muqdisho dhuusamare muqdisho beledweyne muqdisho baydhabo muqdisho kismaayo waxa weeye saasaa loo sii socdaayo loo soo socdaa waxa weeye wax badan oo kale oo dhab ahaantii aad hadda Soomaaliya inaad naftiina iyo carruurtiina iyo guryihiinnii iyo hantidiinnii iyo beerihiinnii iyo inaad u soo noqotaan oo qof walbaaba uu gurigiisa dhisto oo gurigiisii burbursanaa caddaysto unbaa horta muhiim ah waxa weeye xarumihii dowladda waa dhisnay wasaarad walba iyo wakaalad walba iyo hay-ad walba iyo degmo walba iyo saldhig walba oo ciidan lahaa waxa weeye laamiyadii waxa weeye dee kolley tiifyadaad ka aragtaanoo laamiyadiina meelahan ku yaalla kama dhacaan muqdisho laamiyadeeda nalka waxa weeye waa solar oo waxa weeye haddii ay xabad bariisa kaa dhaxdo waad helaysaa markii solarka la geliyay dhowr sano ka hor muqdisho xoogaha wareeraa nagu dhacay digaaggii iyo aracarbeedkii iyo wixii baa waxay moodeen inay maalin tahay markaasi hoyo waay marka waxaa aad iyo aad yacni u qosol badnay ardadii wax baranaysay oo dhan ilaa guryihii waa dadka qaarkood waa iska tabaalaysan yihiinoo koronta kuma jirto guryahoo laamiga la wadaymada waxaad arkaysaa kumaan kuno ardayoo buugtood laamiga ku akhrisanaysa yacni waxa weeye anigu waxaan xildhibaan ahaa oo aan muqdisho joogay asalkayga Canadaan ka imid waxaan muqdisho joogay ilaa sanadkii 2000 waagii carta dowladdii lagu soo dhisay carta ayaan muqdisho galay oon xildhibaan ka noqday ilaa iyo haddana waxa weeye weli meeshii baan joogaa waxa weeye isbeddelka dhacay dad aan anigu ka mid ahay baa ka sheekayn kara inta kale waxa weeye riwaayad bay ku tahay waxa weeye isbeddelka Soomaaliya ka dhacay gaar ahaan caasimadda ka dhacay wax
oo dib looga noqon karaya maaha way ka soo baxday xaaladii waxa weeye system dowladeed baa ka dhismay isdhexgalkii bulshadu waa dhacay waxa weeye xaafad walba iyo degmo walba iyo hay-ad walba ay waa dhisantay shacabkii waa kusoo qulquleen dadkii guryahoodii iyo hantidoodii bay dib u dhisanayaan maalgashi ayaa ka socda ajnabigii baa jidadkii iyo meel walba yaacaya oo waxa weeye doonaya inay wax ka dhistaan marka hadiyadda keliya ama deeqda keliya ee soomaaliya tari karaysaan maanta waxa weeye kow horta aakhirana meel la taga leh inaad bal dalkii ku noqotaan oo aad tagtaan waa muhiim weeye intiina is yara haysa yara baqaysa waxba idinka xubaan maayaane tigidka goosto dalkii taga ta ugu horreysa waa taa waxa weeye $1,000 aad hoteelka iyo aad ku isbaangaraysaan iyo makhaayadaha iyo aad ku isbaangaraysaan shaqay u noqonaysaa dadkii localka ahaa ee meesha joogay oo investmentkay ka mid tahay ta labaad waxa weeye waxaa furmaya يعني dhaqdhaqaaqii industrigii oo hospitalityga furmaya maalgashi iyo fursado ayaa la helayaa waxa weeye dadka ayaa wax lagu noqdaa Soomaaliya waxaa ka maqan milyan iyo dheeraad qof oo dalalka dariska ah ka jira iyo milyan iyo dheeraad kale oo ku maqan qurbaho idinkoo kala dadkii almost nus waa ka maqan yihiin dalkii marka waxa weeye ahmiyadda ugu weyn oo aan runtii idinku dhiirigelinayno waxa weeye dalkiinni taga tuulooyinkii hala tago gobolladii hala tago mashaariicdii kalluumaysiga hala galo waxa weeye dhaqdhaqaaqii bulshadu sidaasuu ku soo noolaan karayaa laakiinse haddaad halkan joogtaan cimrina waa socdaayo istaagi maayo waxa weeye dee dadku حتى vacation بيتقالوا فسح بيتقالوا at least إن عدلك فسح أتقطع أو خرج كي ما تدبوا كلسان أيام كنتي نقول لي رجالنا النبو وحوي صوماليا عندنا هاي ضدك يبدو آد ونعكسنت هاي وحوي نبان الشراب اللي يعضوا بعضك الوصل ده أيامنا أود كلية الحياة هل بيعي أود ملتري ملحة دولة Soomaaliyeed halis ma gelin karayaan waxa weeye waxa kaliya haysteen waxay ahayd inay dadka cabsi geliyaan shacabkii Soomaaliyeedna go'aan buu qaatay inuu al-shabaab ka cabsan waa iska daayeen inay ka cabsadaan waxa weeye liido iyo jasiiro iyo hoteelada iyo makhaayadii ku yaalay iyo ayay bambooyin iyo wax ku tuurtuureen waa kullay media waa kala socotay awal 10,000 baa tagi jirtay 20,000 baa bilowday waxay salaxeen waa dadkii waa ka yaacayaan meesha dadkii waa diideen inay ka baqaan al-shabaab ilaahoday aamineen waxa weeye meel walbana malkumoodku waa joogaa in la noolaado oo wax la qabsado ayaa la go'aansaday waxa weeye awoodda keliya insha Allah ayna intaasay ahayd marba haddii ay shaqadooda ahayd inay dadka argagixiyaan argagixiyana laga diiday oo la yiri waxaad doontaan sameeyo Soomaali baqan wayso qofkii dhintana waa la soo duugayaa awalba malaria dil lahayd muxuu maxay la fijo inta nool la farxad bay ku noolaanayaan waxa weeye waxaad xiiso badan u qabtaan gudoomiyihii golaha shacabka oo jaaliyaddan ka mid ahaa oo odaygiinni ahaa inaad codkiisa maqashaan waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلوات الله وسلامه على الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين مدن يا المواطنين الشرفت وقدرت قارتها يقوله أمان وسلامتي سلامتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن يا هوري فلان وحان ربا دمان إن هلكا نغتبيو شعبي الصوماليين ملك السوق جوجو
iyo dhammaan xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliyeed in ilaahay sabr iyo iimaan uu naga siiyo gudoomiyihii guddiga maaliyadda iyo miisaaniyadda ee golaha shacabka mudane Sheekh Madeer gacan ka gardaran ku dishay isagoo waajibkii salaatu jumca tukaday masaajidka soo baxaya gacan ka gardaran ay dishay ayaan uga tacsiinaynaa waxaan ilaahay subxaanahu watacaala uga baryaa dhammaan xildhibaanada inuu sabarka siiyo iyo eheladiisa iyo shacbiga Soomaaliyeed guud ahaanba sabar ilaahay ha ka siiyo isagana waxaan Allah subxaanahu watacaala uga baryaynaa in qabrigiisa ilaahay uu ifiyo uu waasixiyo una firaasho rawdatul janna jannatul naciim ilaahay ku abaal saad aad ka arkaysaanba hadda dilalkay waxaa socdaan waxa ay markhaati iyo maragmo doonto u tahay in golaha shacabka uu waajibaadkiisii shacbiga u igmaday si buuxda u gudan golaha shacbiga waxaa weeyaan uu dhaxaadkii dhisidda dowladda golaha shacbiga waa codkii shacbiga waa golaha shacbiga waxaa loo igmaday in dalkaasi uu ka bixiyo wareerka iyo ciriiriga iyo qalalaaska uu ku jiray laga saaro lana gaarsiiyo heer dimuqraadiyadeed oo xor loo yahay adduunkooda iyo aakhiradooda ay ku adeegan karaan in laga dhigo ayaa halganka u yahay nolol igmaday taasaan ku jirnaa runtii xildhibaanada golaha shacabkana anigu waxaan u arkaa inay yihiin kulligooda naftood hurayaal waayo maalinna shaqada nagama baaqan umana baaqan doonto wixii shacbigaas aan ugu dhaaranay inaan gaarsiino waa inugu ballan in marna aan hakinin oo aan wadno ilaahayna waxaan ka baryaynaa subxaana watacaala gacan kastoo naga gardaran oo ama shacbigaasi u diidan nabad iyo dimuqraadiyad iyo diintooda iyo adduunyadooda inay dhaqdaan ninkii u diidan ilaahay subxaana watacaala ciisadiisaan ka magan garleeyay allaha naga qabto runtii markaan maanta halkan imidii hadalladii aan degeystay iyo labadan beri aan ku wareegayay Trondheim hadalkan waa iga dhumay waxa aan arkay dhalinyaro iyo dadkii odayaashii hore cuslaaday hadii meesha fadhiya waan soo halganay dudoo xoogaa boqsooday haddana sidii aan ku ogaa aan ahayn gabdhaha qaarkoodna xoogaa yar baa way soo kobceen waa iga runtii waxaa ay ballan baan qaaday sanadkii dhawey baran Oslo imid oo aan gudoomiyaasha oo guddiir oo golaha shacabka ay ila socdeen qaar ka mid ah igu yimaadeen Oslo markii aan meesha booqasho ku joogay ballan waxaan qaaday sanadkii xiga oo ah sanadkan inaan Oslo istaagin toos u imaado ballantaas ay iga hoofinteeda waajibkaygaan ka hoos maraya haddaanan xoogaa yar aan idin dulmarin laba arrimood arrinta koowaad ay tahay waxa uu ku saabsanaa socdaalkaygan aan ku imid Trondheim ee Norway aan soo booqday iyo midda xigta oo si kooban inkastoo hadda gudoomiye ku-xigeenka uu ifiyey xaaladda dalka ay ku sugan tahay in xoogaa yar idin kormeelo laakiin waqtiga ugu ballaaran aan idinka idin siiyo si maaragtaa su-aalaadka aad goxanaysaan inaan isweydaarsano taas ayaa ama haddii kale hadal tiro dhexdin jir hadduu hadal bilaabo in la joojiyo mooyan rugtis waa cidiga joojisa meesha hala gaaro socdaalka oo aan ku yimid Trondheim waxay ahayd sanad guuradii oo boqorkii koowaad olaad aan taqaanaan oo mideeyey dalkan Norway oo muddo laga joogo qurun laga joogo mideeyey xuskiisii ayuu ahaa hase yeeshee waxaa sanadkan maadaama dastuurka Norway uu 200 jirsaday May 814 ahaa haddana waxay wuxuu gaaray 200 sano marka tiin baa lagu soo daray oo ahayd arrinta ahmiyadda dimuqraadiyadda iyadoo la isbarbardhigay dimuqraadiyad oo hirgashay sida Norway aad ku nooshihiin oo maanta nactigeeda iyo dheefteeda aad aragteen iyo dimuqraadiyad la soo kobcayso haddana dhismaheeda lagu jiro la dhisayo oo ay ka mid tahay Soomaaliya labada la isbarbardhigay anigu waxaan ka hadlayay xaaladda Soomaaliyeed iyo halka uu maray dhismaha dimuqraadiyiinta iyo deegaamiinta iyo maamulka dalka sida loo soo dhisay dhibaatooyinka carqaladaha ku ah Mr. Bundrik oo ninka la yidhaahdo oo ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee dowladdan dhowr iyo 30 sano kusoo jiray siyaasadda 8 sanana ahaa ra-iisul wasaare ka ahaa asna wuxuu ka hadlayay dimuqraadiyadda hirgashay habka ay u shaqaynayso iyo sida isu barbardhigaya labadaas taasoo aan shalay arbacadii
aan kaga hadalnay xaggaasi waana aada looga soo qayb galay in badan oo soomaaliya iyo muslimiin kaleba way joogeen arrintaas ay ahayd ujeedada ugu weyn waxaase ku lamaansanaa waxaa jira Norway waxay ka mid tahay dadka deeq-bixiyayaasha oo kaalmada u siiya dalka Soomaaliya يعني دور ميلود وحكبيان مثلا تيجي تبيسي هذا حوالين وحكومة كذي أو الصوب اللي وشغالة الدولة المشاهدة واللي قالوا وريك خرج كانوا أنا كان مشاهدة كوسينين شغالة عن كل إنه بدي أنا كنا سوق جلاي خرج عنا سوق جلاي صوم على عنا سوق جلاي وحنقول له إني إن اسمها دقموين كي يقول والله سي حكومة الفدرال هي ويا ممكن أول أي كوجاتو دقموين كي يقول والله يقول قبل كي مسجد على اللي تعلم فيه وحاسين وبالله يا رولي حين وتعرف صدراتي أي جرتي وبيت برلمان أهان وحاجة عن نقصي يعني ما مرتا خبرة ولا عن كذا أما كنت جين كنت اللي كشفيان حاجة ديار أنت أحزاب سياسية سيدنا صومالي لو سمينا أحزاب سياسية تاسو عن برلمان أهان وأركنه إن صوماليا يعني قضية الوجود رجبحه ولوك بحر سياسة قبيل اليوم من قبل حيزوال أوجه تاسوا يبدو الحلية لكن أدليست هدينا سميه أحزاب سياسي وحا إيماني سقبيل كإنه حق الله بكذا ولكن هم مرة من كايت معدو أفكار ديمقراطية سوشياليست كمبيدة إنه حاسة إيمان دورا تاسو أي نغنيسو إن تنتم ونعكسن وعافمات قوة أهمية أي لا لحي أهمية أحزاب السياسة الله سمينا واحد waxaad aragtaan hadda dadkii oo madaxda noqonayo alaabto inta si fiican oo recycling oo lagu sameeyo bakeeriga inta waa la soo jijibinaa marka lagu sameynaa xaashida iskuulid waa la sameeyaa doori waahis madaxda recycling ka lagu sameeyaa hibro saas oo aan jiraa jawaari wasiir aan jiraa marka maxay u soo bixi laayihiin dadkii madowga garmadowga maxaa ay u soo bixi waayeen dad oo hogaamiyaal cusub dhalinyar oo meesha oo soo qabsada maxaa loo waayey 20 sano recycle lagu jiraa sababtu waxaa weeye forum oo aad ku soo baxdaanba ma jiro waxaa loo baahan yahay qofka oo buurha kaba joogo oo xisbiga siyaasi u furno qaybinayo oo mabaadidiis sheeganaya in hargeysa laga ayidi karo oo la yidhaahdo ninkaasi mabaadidiisa jecel marka taas waxay ku iman kartaa in ay jiraan axzaab siyaasi هذا كيني سمك إنه حاوليان وفره أو أي دليرة كسر به كريسو إن هجان leadership هجامين في ذلك والله ترى أنا فقط عن مستشفيات والله والله لو قدر المحاولة ما كأس قدر ويجن أطروا من الرئيس الوجان تا يا ميشا تجي مركا وحلقة معلومة تاو حيد إن عيدك الدون كله أيها دقيقة شيء كلام من تحديات النرويج xilkayga koowaad wuxuu ahaatay inaan presentation-ka sameeyo tan labaad inaan u mahadceliyo waayo ama binicmati rabbika xadis waxaa waaye yani alla uma mahadcelinin qofkii wax u qabtay inaan u mahadcelin baa yidhahda xadiis baa dabayaa jaab aayadaasi فأما بنعمة ربك فحدثت عن أركيش حديث رسول عليه الصلاة والسلام وغيره اللهم أسلم هالعلمي وفكي أبال كوكري حتى أستغرم يعني جزاك الله أذن حيث يعني هم هذا المال أي محاولة إلى المحسن دي هذا عرفت مشهور كجرتي وايو دل كانوا حاولوا يعشوا به العكس الصومالي الوك عالميو وحب هي عشوا به عشان ساعة هذا إن توس حتى مركز يعطوا عن عرفت الجيدين كانوا حاولوا يقولوا نوعا كونفرنس بجيدين لكن هايدو حالة اللي ميتوا قبلنا وتريبونا بنانك لدي لا أفر بقول قبل ماشي تمثل شيء أفر بقول إذا أنا بقول شيء في ماشي جوجي إن يعني عشور بيها إن لكن يوري لعبت كعجب هاي في الصومالية مير في المكل هاي سوى حبي سوق وعيسى تسأل عن سوق هذا المحاكم مركي أن أصله كسر بجد يعرف إذا جاء داك براد بكر أوري وحبيها وحين نعبيهن ذكر why they hate that وحامرك عن قراءة وفشيري وعقاب أخري وأخري وحاكم مشهور عن كي وقفوا وينايو القاعدة مدحضوا المصري يارد ينفوني بس نجلس ولا مركز ساعة كوريس كل يقول بقى ساعة فرنا يا أخينا هل كاس بقوا من حين نعبيهن قلنا وفي شيء أسبابتي تدخل بدنا مش كحاجون عليه
وافكري أنا حمر عن كسوب بعد 26 كي هالك اللي بان بالي جدي وقبل سادري لا الله يرحمه أيوة 6 معلومات كبعد أنت على مدو حال لي سم محينون نادي مركا مسكحدي واحد بالوضعي بيقول فكرته dhibaatada aniga xamar aan kaga dagaalamayno oo anaguna nagu haysato aan leenahay aan iska qabanno yani effectigeed intana waa yaallaa oo ciidan baan arkaya oo hub bastoolyaal iyo hub filan aeroboortyaalka jooga caadi ma ahayn norway askari wuxuu isaga socon kartiin waxaan buu wadan jiray meelaha soo soconaya laakiin ayagoo hubaysan oo dagaal diyaar u ahaan lama arki waxaa keenay waxaa weeyaan effectigii baa intana soo gaaray marka halkan ku dagaalan ama xamar ku dagaalan labada dalba waa u dagaalamaysa waxyaabaha progresska yar aan samayno xamar aan ku samayno norway wuu saameynaya marka taa ayaa ahayd marka arrimaha noocaas oo kale ah inaan kala xaajoono iyo xeerka uu maraayo dalka iyo waxyaabaha la damacsanya 2016 in la gaarsiiyo haddii alla idmo inaan uga xaajoono haddii aan siyaasad ahaan arrimaha aan wax idinka taabto golaha shacbiga siiba kan oo anaga dhana baarlamaanka federaalka oo anagu aan mas-uulka ka nahay ama madaxdiisa hoggaankiisa aanu hayno waxaa ballantu ay ahayd in maragtaa yani bartilmaameedka waxaa waye 2016 in maragtaa doorashooyin la gaarsiiyo haddii ay berito waxay ku xiran tahay xagga security-ga ama amniga inuu kordho labadaa inay isbarbar socdaan amnigii iyo arrimihii siyaasadda iyo dhisidii hay-adaha qaranka oo fulin lahaa waayo waxaa walaalayaal aad ogaataan waxaa weeye 20 sano hay-adihii baa la furtay hay-adda haddayna jirinna yani dowladda ma aha jaamac iyo geed iyo faarax ma aha waxaa weeye waa shakhsiya qaanuuniya dadku waa yimaadaan waa sameeyaan waa ka baxaan waa inaa la bedelaa mid kala imaanaya ilaa لكن هيئته وين نام كوجدا في دم باريس وين كوجدا في انتلجنس وين كوجدا في حوجة دلك وين كوجدا كي وزارة الحرش وين كوجدا هي هذه إما في صوب وقلب كحجنا وحويان سير له حقيقة قفك مواطن قبل مدي يقول أهان سير له إلى عليها قفك أو مواطن أمن جيسي سير له إلى فبعدنا حقوق جيسي وأما إنسانك أها سير هو هلا حقوق الإنسان هو مهم قف إنه هذا مواطن إنه هذا رميز ولا معلومات وحال هذا الإنسان حر بمقدار الإنسان حر بمقدار حريته الإنسان إنسان الإنسان بمقدار حريته قف بني آدم وهو ابن آدم إنسان هي عبر كذا حاول إلا هير كذا حرية حرية هذا يدمت التاي هي مرتاي حدود إدافع ما يكون حرية التاي إنسانية الآدم شخصية إنساني وعانا ديما وعانا هي يعتمد على عنش مثلا حتى أنا وحالي محمد شو اسمه الجواري بأصدور نرويجي عبد القادر الجواري كسوق أبو هو يعني ولقي سنة حاجة كسوق وأنا صوتي عندي لما أنا سفارة أمريكا وأنا لا الفيزا من أمريكا أنا ولا يصير أسوأ الديلة صوته مع حقيقة هو صوته حويان bulshada oo ka dhaqmaayo karaamadii looga baahnaa ma ay siinin damaanad male ani haddaan waxa la yimid la qabsana haddaan waxa hagaajin loo sheegana laakiin xagga diimka qofka xagga jooga lama siinin damaanadii loo baahnaa oo bulshada ay siin lahayd ma haysto marka taa way in laga dagaalamo Soomaaliga inuu Soomaalinimo ku dadaalo إلا أنو قارنو عن كفاني كانو سيد بوحة وديك أنا هل كان ترونهم وحن زوج جوي أيضا صومالي لماذا لا قرين هايو صومالي ميهل هايو متأكدي من أفريقيا من الغرب تقعي بطل ولا يحشونا لكن مدى عن هذين وحاول إن سيد بوحة ما ألا ميشي أدريد لما راي صومالي بان حقيقي اللي هذا الوقوف ليس أيو أيا بطل ما ميتكم